tani kuma tilmaami karno ee qiso ee waxaan dhihi karnaa qalbigii ku xirnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa guuleystay baarinimada waalidka iyo aqoonta ay waalidku ku soo bareen ayaa waxa ay noqonaysaa horseedka guusha sidoo kale markaa tahay in Allah qof ku xiran waxa tahay mar walba qof guulaha ee himilaha u nugul qisada tani waxa ay ahayd qisadii ninkii taajirka ah shaqaalihiisa su'aalo badan oo hordhigay laakiin waxa guuleystay qofka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo la jiray waxaan idin soo gudbi doonaa qisadaas oo meelo fara badan taawanayso halka aad ka daawanaysiin waa YouTube-keena Socdaal 24 inaan ugu soo biirtana waxay noo tahay sharaf si aad u heshid qisooyin fara badan waxa ay ku bilaabanaysaa qisada sida tan nin taajir ah oo aan lahayn xaas sidoo kalena wax oolaad ah oo aan siin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa maalin maalmaha kamid ah waxa uu doonayay in shaqaalihiisa uu sameeyo casho sharaf waxa uu u sameeyay casho sharaf qurux badan markii jawiga cashada aad u macaanaa ee qaateen sidoo kalena sheeko dheer ee dhexmartay kadib ayuu ninkii taajirka ah waxa uu soo bixiyay lacag aad u tiro badan iyo kitaabka Quraanka Kariimka labadoodina waa uu garab dhigay kadib waxa uu dhahay nin walba mid uu rabo ayuu qaado doonaa ayuu dhahay cid mid gooni ah lagu qasbi doono ma jirto laakiin qisadan ayaa waxay tahay mid xigmadeysan oo wax badan ay ku duugan yihiin ninkii taajirka ahaa ayaa ninkii ugu horeeyay waxa uu weydiiyay waardiyaha asaga oo dhahay labadan mid kala qaado ninkii waardiyaha ayaa isla markii waxa uu ku soo booday aniga ahaanteeda kitaabka Quraanka Kariimka ma aqaani mana kasaayay sidaas darteed waxaan qaatay lacagta ninkii sidaas ayuu shib ugu dhahay kii labaad ee beerta falayay ayuu soo wacay mar kale su'aal ayuuna weydiiyay ninkii taajirka ahaa ninkii beerta falaya ayaana waxa lahay lacagtan iyo kitaabka mid qaado ninkii beerta falaya ayaa asagana waxa uu ku jawaabay aniga waxaan qaada lahay lacagta sababtoo ah aniga xaaskeyga ayaa iga xanuunsan waxaan u baahanahay lacagta sidaa darteed hadii jiro wax kale oo muhiim ah sidaas darteed waxaan qaada lahay kitaabka ayuu dhahay midkii saddexaad ayuu mar kale soo qabtay waxaana uu weydiiyay su'aal midii hore oo la mid ah asagana muxuu ku jawaabi doonaa ayaad isdhihi doontaa bal adiga ahaantaada isweydii muxuu ku jawaabi doonaa ayaa isdhihi doontaa midkii saddexaadna mid noocee ah ayuu ahaa bal adiga ahaantaada maxaa kugu soo dhacayo maxaana isleedahay kuma noqon doonaa ayaad isleedahay midkii saddexaad hadii midkii koowaad oo ahaa waardiyaha midkii labaad oo ahaa ninkii beerta falayay midkii saddexaad wuxuu ahaa ninkii cunto kariyaha ayuu ahaa isla su'aasha ayaa la weydiiyay lacagta iyo kitaabka mid ka qaada lahayd ayaa la dhahay isla markii asagana hadalka muusan isku dhimaa asaga waxa uu dhahay labadii hore waa uu karoona aniga kitaabka waan aqriyaa laakiin marka shaqadaada aan ka baxo jaanis uma helo kitaabka inaan aqriyo waa kitaabka Quraanka Kariimka ayuu wuxuu dhahay jaanis uma helo sidaas darteed aniga waxaan qaada lahay lacagta ayuu dhahay midkii saddexaad sheekada iyo qisada nuxurkeeda halkan aan hadda marayno ayaan isla soo gaarnay kii afraad markii ay imaaday midka afraad waa xoolo raaco sida Soomaalida markii ay yaqaanaan qofka xoolo raacana inuu yahay qof duruuf ah oo dhan walba ka bahdilan ama xaaladihiisa qaar ee aad u jajaban yihiin ninkii hantiilaha ahaa isla markiiba wuxuu ku bilaabay jees iyo dhiga hadal ayuu ku bilaabay laakiin inta badan waxa la sheegaa qofka liito ee duruufeysan inuu yahay kan guuleysta ee mar walba guushu raacdo isla markiiba ninkii taajirka wuxuu dhahay warniyo dadka hadaan dhanka ka raac waxa sidaas la lahaayeen waa kii afraad ee xoolaha u raacayay sababtu u dhahay ma taqaanaa markaas ayuu dhahay ninkii taajirka oo hadalka wata ayaa wuxuu dhahay warniyo dadka hadaan dhankan ka raac waan ku ogahay waa duruufeysan tahay waxa cunto ayaa u baahan tahay sidoo kale waa gaajeysan tahay
kaba iyo dharna ma haysatid ee lacagta dooro sidaas darteed waxaad ku soo gado doontaa kaba iyo dhar iyo cunto ayaa ku cuni doontaa wiilkii hadalkii ma uusan ka xanaaqin oo wuxuu dhahay si fiican ayaad samaysay wayna qurux badan tahay laakiin aniga sidaas darteed waalidkaygu wuxuu isoo baray quraanka kariimka mar walbana hooyada waxay dhihi jirtay lacagta iyo qasnadaha fiirin ee waxa fiirisaa waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay sidaas darteed aniguna waxaan qaadan doonaa kitaabka ayuu dhahay kitaabka ayuuna daf dhahay wiilkii xoolo raac ahaa subhanallah isla markiiba wiilkii markii kitaabka uu dafay kadib kitaabka oo kala furo waxaa ku jirta laba bashqadood bashqadii koowaad marka uu furay waxa uu ka arkay lacag aad u fara badan isla markiina waxa uu ku shukriyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuuna u mahad celiyay bashqadii labaad marka uu furay waxa ku qornaa warqad ku jirtay adiga ayaa ay dhaxli doono xoolahayga iyo maalkayga ayaa lahay wiilkina aad ayuu u farxay qisadan waxa ka baraneynaa inay tahay hantidu waxa aan dadka ka mashquulinayso sidoo kale cabsida alle baahida waxa ay tahay sidoo kale duruufaha dadka looga faa'iideysto qisadan waxaan ka baraneynaa qalbi ku xiran Ilaahay subhanahu wa ta'ala marnaba in uusan gaajoon marnabana uusan duruuf dareemin mar walba waxa laga rabaa qalbigaada inaad ku xirto Allah subhanahu wa ta'ala si Ilaahay khayr aad ugu filato wax badan aad u heshid dhamaan saaxiibada daawanaya qisadan waxa leeyahay ugu sheekay caruurteena sidoo kalena kitaabka faa'iidada uu leeyahay mar walba bar si ubadka mar walba lacagta ee ugu doorbidin kitaabka mar walbana ay u qaataan kitaabka quraanka kariimka waxa idin soo gudbinaya anigoo ah mahad abuukar maxamed mahad socdaal intaan ku kulmi doono qiso noocan oo kala waxa idin leeyahay nabadgelyo haddii aad rabto qisooyin noocan oo kala ku soo biir barteena YouTube-ka ee Socdaal 24